Alla naxariista jannaha ugu deeqay xildhibaan hore Axmed Aadan oo ka tirsanaa jirnay baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho hotel uu ka deganaa ayaana meydkiisa laga helay sida ay ku warantay warbaahinta qaar. Allah u naxariistay xildhibaanka ayaa waxa uu ka soo jeeday isla mar ahaantaasina uu ahaa muwaadin reer Somaliland waxaana uu noqonayaa qofkii labaad ee u dhashay dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee lagu dilay magaalada Muqdisho tan iyo markii ay qadhaadhaatay isla mar ahaantaasina ay sii xumaatay xiisadda u dhaxaysa dalalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaaliya ee ku saabsan arrimaha hawada ayaa waxaa soo badanaya dilalka lala beegsanaya muwaadiniinta reer Somaliland isla mar ahaantaasina jooga magaalada Muqdisho. Haddaba xildhibaan hore Axmed Aadan oo ka tirsanaan jiray baarlamaankii hore ee Soomaaliya waxa uu noqonayaa qofkii labaad ee ka soo jeeda dalkan Jamhuuriyadda Somaliland isla mar ahaantaasina ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee la dilo isla mar ahaantaasina sideen horeba u soo sheegnay waana qofkii labaad ee ka soo jeeda Somaliland ee la dilo toddobaadkan gudihiisa. Maxaa uu laga damacsan yahay dilka muwaadiniinta reer Somaliland muxuu salka ku hayaa yaase ka dambeeya waa su'aalaha u bannaan jawaab daawade hoos noogula wadaag fikradaada.